xidiga kooxda Real Madrid Kylian Mbappe oo jabiyay rikoor uu Alfredo Di Stefano dhigay 17 sano ka hor hadaba muxuu yahay rikoorkaasi muuqaalkan ayaa Google wadaagaya soo dhow daawaday balse markii hore waxaan ka codsanayaa like muuqaalkan sina share kare haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biiro follow dhawareeg bulshada sida Facebook TikTok iyo YouTube maasanid xidiga kooxda kubadda cagta Real Madrid Kylian Mbappe ayaa xalay waxa uu jabiyay rikoor uu lahaa Alfredo Di Stefano oo ka tirsanaa kooxda kubadda cagta Real Madrid Mbappe waxa uu noqday ciyaaryahanka ugu goolasha badan liiga xilciyaareedkiisii ugu horeeyay ee kooxda Real Madrid tani waxay ahayd ciyaartiisii 32 ee horyaalka waxaana uu xidigii hore ee kooxda kubadda cagta PSG u dhaliyay goolkiisii 28aad kulankii Real Madrid ee xalay 2 gool kulay kaga adkaatay kooxda Real Mallorca kulan qaybka horyaalka waddanka Spain liiga xilciyaareedkan waxaa harsan 2 kulan oo horyaalka waxaana uu xidig reer Faransa fursad u haystaa inuu tiro kale uu ku daro goolashiisa xilciyaareedkan Alfredo Di Stefano ayaa haystay rikoorkan muddo 17 sano ah tan iyo markii uu dhaliyay 27 gool xilciyaareedkii 1953 Alfredo Di Stefano ayaa Real Madrid waxa uu dhaliyay 306 gool 392 kulan oo uu saftay kooxda kubadda cagta Real Madrid waana xidiga afraad ee ugu goolasha badan taariikhda kooxda kubadda cagta Real Madrid kaliya waxaa ka horeeya saddex xidig oo kala ah Cristiano Ronaldo oo ah kan ugu goolasha badan kooxda kubadda cagta Real Madrid kaas oo dhaliyay 450 gool Karim Benzema oo ku jira booska labaad ayaa isagu Real Madrid waxa uu dhaliyay 354 gool sidoo kale booska saddexaad waxa ku jira Raul González oo Real Madrid u dhaliyay 323 gool Alfredo Di Stefano oo isagu ah xidiga afraad ee ugu goolasha badan kooxda kubadda cagta Real Madrid ayuuna xalay Mbappe waxa uu jabiyay rikoor uu dhigay 71 sano ka hor kaasi oo ahaa in 27 gool uu hal xilciyaareed ama xilciyaareedkiisa ugu horeeya uu u dhaliyo kooxda kubadda cagta Real Madrid Alfredo Di Stefano ayaana rikoorkan waxa uu dhigay 1953 dhanka kale kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa ahayd mid adag iyadoo ay u baahnayeen gool daqiiqadihii dheeraadka ahaa si ay u dheereystaan rajada horyaalka guuldaradii Real Madrid ay kala kulantay Barcelona isbuucii hore ayaa ahayd darbaaxyo weyn oo ku timid rajadooda hanashada horyaalka xilciyaareedkan iyadoo ay hadda 4 dhibcood ay ka hooseeyaan kooxda Barcelona oo caawa la ciyaari doonta kooxda isku magaalada yihiin ee Espanyol kulan qaybka horyaalka waddanka Spain liiga xilciyaareedkan Barcelona waxay ku guuleysan doontaa horyaalka haddii ay caawa ay badiso balse haddii ay barbaro gasho ama laga badiyaa tartanka horyaalka uu sii jiri doonaa ilaa labada kulan ee ugu dambeeya xilciyaareedkan Barcelona ayaa caawa 4 saac bar waxa ay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta Espanyol ciyaar ka dhici doonta garoonka kooxda Espanyol waxaana xidigaha kooxda Barcelona iyo tababar Hansi Flick ay caawa rajeynayaan inay u dabaaldegaan hanashada horyaalka waddanka Spain liiga xilciyaareedkan hadaba daawadayaal ahaan sidoo aragtaa Barcelona caawa ma u dabaaldegi kartaa ku guuleysiga horyaalka waddanka Spain ee liiga xilciyaareedkan mise dib ayaa looga dhigi doonaa aragtida waxay tahay qaybta hoose comment wadaag